Yok. Soruyorum. Bu soru. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إلهي بمهد له سورة قليي إلى إنه عافمات قب السجون نمادنا سراكيشة تالسك عيدا كاينا حيبها يصلي قلبات رنا هانتي وحمان تفرحنا مددي كوبنايد عن saldhigga joogay ee 35 cisho ahayd waxyaabihii noo qabsoomay oo maanta midhahoogii aad arkaysaan taasoo ka mid ahayd xiritaanka wadooyinka gala badda ee ah marsooyinka dabiiciga ah waxna laga soo dejin karo waxna laga dhoofin karo noocay doonaan ha ahaato oo ku guulaysanay xiritaanka baraha ugu yaraan 6 barood ayaanu xidhnay ay ciidanka iyaguna joogto u joogaan muddo 2 bilooda aanu qorshaynay inay joogaan tallaabadii labaad waxay ahayd diyaarinta gaadiidka badda annagoo la kaashanayna waddanka aan walaalahanahay ee jaarkanahay ee jamhuuriyadda Jabuuti waxaana loogu soo dayactiray gaadiidkii badda ee ciladaysnaa alxamdulillah oo maanta diyaar u ah howlgal iyo qayladaan meel alla meeshan ah jamhuuriyadda Jabuuti aanu iskaashi ciidan leenahay ay noo soo hagaajiyeen gaadiidka oo maanta u diyaar ah howlgal nooc walba ah alxamdulillah rabbil caalamiin waxa qodobka saddexaad oo ahaa dayactirka iyo dib u habaynta xafiiska saldhigga guriga weyn ee aad arkaysaan muuqaalkiisa oo isna qorshaha noogu jiray kuna guulaysanay hadduu alla yidhaah intaa waxaa ii dheer waxaan mahadnaq aad u ballaaran halkan uga jeedinayaa taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee jamhuuriyadda Somaliland Admiral General oo runtii nala garab taagan mar walba wixii taakulayn aan hiil iyo hooba uga baahano ayaan aad ugu mahadnaqayaa kaasoo isagu in badan nagu dhiirigeliyey waxqabad iyo daacadnimo aad baan ugu mahadnaqayaa taliyaha ciidanka Bashaar Ramadaan fadligeega iyo saraakiisha ciidanka ee saldhigga labaadba waxaan leeyahay bisheeda cimri dherer iyo caafimaad qab ilaahay ha nagu gaarsiiyo wixii intaa ka dhimanay qorshaana annagoo la kaashan doono madaxda sare ee ciidanka ilaalada xeebaha ee jamhuuriyadda oo ugu horeeya taliyaha insha Allah waanu la kaashan doonaa gobonimo iyo guul iyo waxqabad wabillahi tawfiiq xaruntii santa kooda joogno runtii anaga farxad gooniye bay noo tahay waxaan ognahay in ciidanka ilaalada xeebaha gobolka Salal muddooyinkii ugu dambeeyay uu bara badan oo bariya badan tahay oo ka shaqeynay uu dhanna gaafrey kaga jiray dhanna xariga jidadka ama marinada looga shakisan yahay in waxyaalo badan taariibta iyo wax kale oo amniga khalkhalgelin karaaba ay ka soo degi karaan in muddo ku fogaan taasoo baa keentay maanta in boqoshada ku imaado markaan aragnay dhaqdhaqaaqa ama shaqada ka socota xarada ilaalada xeebaha ee gobolka Salal ee taliyaha iyo hogaaminayo muddadii uu joogay isbedelada ciidanka gudihiisa ka socda taasoo ogahay 7 baro oo aan hore ciidanku u degayn maanta degan yihiin iyadoo ay saldhigyada gobolku degan yahay 4 saldhig yihiin sidaan anigu warka ku hayo ama riboodaan ku hayo waa saldhigga Seylac saldhigga loo yacado kalug hayo iyo kacalgari lixdan baa lagu daray taas waxay cadeynaysaa in ciidanku uu xarag kasta ciidankiisa ku sugay kuwa kale oo tagi doonaa laakiin maadaama halkan baradii koobaad tahay waxay nasiib u yeelatay inaan maanta kormeerkaygii iyada ku qaabilno aragna shaqada haysaan aragna isbedelada ciidanka ku socda ka marxaati furno wax kasta qabataan waxaan ciidanka badda ku gubaabinay shaqo waxa haysaan adag ciidamada kale way ka duwan tahay meel aan cid iyo ciirs lahayn baa ka shaqaysan bariga mudadun baa ku iman ama ciidan baa gurmadka ku soo gaari laakiin taa adiga iyo biyaha ilaahay bay suranay
gurmadka ilaahay ayaa gurmadeedii ku dhow waan ognahay markaa ciidanka ilaalada xeebuhu inay ciidanada ragsiga qaranka ugu riskiga badan leh ay yihiin marka la eego shaqada ay qaranka u hayaan taasaa keenta mar kasta inaan mudnaanta ugu badan ay annaga xafiiskayga iyo xafiisyada qaranka baa u yeeshaan dadaalka gobol ahaaneed iyo shaqada ciidanka inta waan kasii kordhinayn laakiin waxaa loo baahan yahay inaynu aragtida cadowga mid ka wada noqon ninka baddeenna kalluunka ka guranaya dembiga ka guranaya waa cadow kalluun dhex maray waa cadow nin kastoo baddeenna u soo bareeray waa cadowga isku eegay marka aad iyo aad u mahadsantahay mudan taliya adiga iyo ciidankaaga saraakiishaada kula shaqaynaya waxaana guushuna waa intaasoo looga sii dhawaado guusha ciidanku waa intaasoo looga sii dhawaado marka aad iyo aad u mahadsantihiin saasaa inoo ballana wada shaqay wacan iyo intaasoo ka sii kordhino dadaal